بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما توحي نسليك دون عوان مهم عوان كاسو نصرة المظلوم وقرقاري قفك دبان قفك اللدلمي وقرقاري ديسا وحين أقنهي عالم كان in dulmi fara badan ka jiro khaasatan wali zamaankan aynu joogno in muslimiinta lagu hayo dhib aad u badan waxaynu ku soo xigan doonaa insha Allah kitaabka muslimuuna liyoor ay qortay usrada Samarqand yiraahdo waxaynu ognahay walaalayaal dhammaan adraafaha caalamka waxa joogto walaalayaal salaadeeno kala tukada soomka aynu soomno sooma qiblada aynu u jeedsada waxa kamida kuwaas kuwa cibaadadooda u guto si wanaagsan oonan dib lahayn oo cibaadadoodaas wax dib ku hayn ayaa kamida dhinaca kale waxa jira dad cibaadadoodaasi iyo alla baritaankoodaas dib lagu hayo oo iyaga iyo diintooda la nacayo haddana ma zaalu mutamassikiina bi diinillah kamayna suulin inay diintoodii ku sii far adeegana haystaan walaalayaal maxay nagu waajiba hadaba inaga ka muslim ahaan maxay nagu waajiba waxay nagu waajiba inaynu walaalaheenaas sida loo dhibiyo aynu iloowin walaalaheenaas jirkeen oo kala aynu iloowin dhiigoona kala aynu iloowin wixii iyaga taabsanaya wixii ku dhaca inuu inagana inagu dhaco dib kasto ku dhacdana inagu ina taabsato weeyaan waxa weeye qof walba inuu u gargaaro dariiqadu doonana ha u gargaari ducaha u gargaaro dagaal ha u gargaaro wax dariiqadu karo inuu u gargaaro oo muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da qof walba waa inuu u gargaaro walaalaheena dhiban inagana waxa inagu waajiba aqal hadii aanad kareyn inaanad wax kale ugu gargaarin inaanu u ducayno insha Allah ta'ala aaway ugu dambeyntii dadkii oran jiray waxa jirta xurriyad baa jirta kuwii oran jiray waxaanu difaacnaa xuquuqda dadka oo ilaalinaa kuwaasi xuquuqna ma ilaaliyaan waa beenaalayaal kaadibiin waxay doonayaan yuriiduuna an yudfi'u nuura Allah bi afwaahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha al-kaafiruun in nuurka ilaahay subhanahu wa ta'ala afafkooda ay ku damiyaan mid doonayaan laakiin Allah subhanahu wa ta'ala nuurkiisa isaga dhameystiraya haba karahan gaaladu iyo kuwa kufaartiya walaalayaal haynu ducayno walaaleena meel kasta joogan waynu aragnaa dib badan ayaa jirta tii ugu dambeysay Hindiya wixii ka dhacay daraad waxa jirta muslimiin oo qoor kitaabkan iminkaan ka soo xiganayno insha Allah ta'ala ciwaankii aan soo gelin doonay dibta lagu hayo waxa jirta walaaleena Falastiin meel kasta joogaanba wala muslimka la dhibayo inaynu u ducayno way waxa mad moodaa in ducadiibayna wayn oo ducadii baan isku ducaynin waxaynu isku ducayno walaalayaal markasta aynu isku ducayno markasta aynu xasuusano oo qofka ihtimaam siin waaya arrimaha muslimiinta kamid maaha ayuu nabi kaleey salaatu wasalaam yiri islaamka dadka muslimiinta kamid maaha yaani haynu xasuusano walaalaheen insha Allah ta'ala darsigeenan inta baynu ku soo koobaynay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته